بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جو خسرت ظاهر وشوجه هرجيسة وحنا صعدا عن بريها المقلية إن ودن كسياسة دي سوي عادي هذا قصتها إن هالضبا أنا وتانك هذا ليه وحويه نبت جليده نبت جليده ووح حأين كنا لونه الدون كي ومضبا إنه جوده أمانته أين كتشوجنه أين هبني ما نكسحنه وحن أرن لها horta mid waxaan oran lahaa dhalinyaradu waxa weeyaan dhalinyaradii wadanka u dhalatay ee mustaqbalka lahayd weeyaan cid alyaale cid maanta oranaysa dagaalan ama bax ama soo banaan bax oo tag suuqa oo wax dhibaato samee waxa weeyaan waa cid khaldan weeyaan laakiin dhalinyaradu wadankooda way ka warhayn karaan siyaasad ahaan way uga warhayn karaan dhibaatada jirta way ka hadli karaan hase ahaatee mudaharaad loogu baaqo isagoo dagaal hor socdo oo aabbuhu intuu yidhaahdo kaalaya waan mudaharaadaynaa intuu bushka hor lullo uu haddana yidhaahdo waxaan samaynaynaa mudaharaad dee taasi ma aha nabadgelyo ee waxa weeyaan waad kicinaysaa carruurtii anigu waxaan odhan lahaa siyaasiyiintayada qaaliga ah ee aanu jecel lahay محافظ يا معارض با وحن لها ودنك هاللو ترو عرورت هاللو ترو دمرك هاللو ترو ضلك هاللو ترو وحي أتسكو أفكارون ويدان أول بواس حنشرتيني إن الصحتان أو إسوتي معدان أيا وناكسن وإن رقوا وين باتينا إنت إسوتي معدان أو دولة إيا معارضك وإنت إسوتي معدان وحي دانا هي دلكو وباهان ياهي لغاهدلو وحي الشرعية إيه آن لغا بودي كرينا أتك هذا الشان وحي شرع الدرعنا أتك هذا الشان مركا أنا ومن المايين اللي سفكرون وايو لكن إلا ما أنت هرجساني ميد إلا دولة دي كلمية إلا تي ظاهر ريالة إلا ما أنتو أنشوفنا مصبح يعيستو وحويا ما لنا ريالة ما أنت اللي هذا إن دورشة إيمان يسا أمو حسا إيمانية إن عرورته أقول باغدان دقال ما قروح بدنا وإذنكو إنت يسو تكتر رجينا واوينو وذا هدلا oo waxa tiraahdaan waxa say noo danay waxa say noo dana dalku cadow buu leeyahay mid gudaha iyo mid dibadda abuu leeyahay waanu idin baryaynaa naga xishooda ragiina waaweyn oo xishooda odayaashayadii baa tihiin hal damiyo colaadahan iyo waxan wixii aad kursiga ku doonaysaan ama kuwa ku fadhiya ay ku doonayaan waa inay isaga yimaadaan oo ay ka heshiiyaan oo ay ka wada hadlaan mid kalena waxaan farayaa haweenkayagu waa hooyadu waxay u baahan tahay ilmaheeda inuu nabadgelyo ugu seexdo oo ugu soo hoydo uu iskuulka ku tago oo suuqa ku tago oo uu bulshada kula noolaado laakiin anigu hooyaha haddaan maanta idhaahdo soo kaca carruurtaydii soo baxa waxa la yahay waxaan faa'iideeyay ma jirto haweenahan inagu mar kastaba waxaynu nahay kuwa nabadgelyada ilaaliya ee jecel wanaaga wada ayaynu nahay waxa weeyaan raggeena iyo carruurteenaba inaynu la talino oo talada wanaagsan aynu siino laakiin inaynu hor cararno oo aynu horino dhibaatada ma aha waanu idin baryaynaa wanaag ha lagu dhameeyo waxa la isku hayo oo hal la ixtiraamo oo bulshada ha laga xishoodo oo dadka ha laga xishoodo oo dalka ha laga xishoodo oo Soomaaliland meel wanaagsan baad maraysaa abaaraha iyo sixir bararka iyo dhibaatooyinkan taagan waxna waa wax qadar Ilaahay ku xidhan waxna waa wax gacanteena ku xidhan waxa qadarka Ilaahay ku xidhan waynu baryaynaa in Ilaahay raxmad khayr qabayna siiyo waxa gacanteena ku xidhanna waa wax xakamayn u baahan taasna waxa looga baahan yahay dawladdu inay xoogeeda saarto oo ay sixir bararkan ummadda ku yimid ay ka hadasho oo ay xoojiso ciidamada oo kale مثلا annagu ma doonayna ciidan qori wata oo carruurtayada xabada ku rida ama laaya waxaan u baahanahay ciidanku nabadgelyada sidoo noogu hayo Ilaahay ha sharfee inay u hayaan hase ahaatee askariga haddaanad soo doonan askari kuma soo doonanayo haddii aad dariiqa marayso askari ku soo doonan maayo haddaad si dhibaato wado ku soo doonanaya dhibaatada ha la iska ilaaliyo ciidankuna ha taxadiraan dadkuna ha taxadiraan waanu idin baryaynaa naga xishooda fariintayda nabadgelyo
ayaan anigu maanta intaas ku sheegaya waa mahadsantii